بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجكي فلقيت ورarka qodobada barnaamijka caawa aan idinku hayno waxa kamid ah wadaxaajoodada u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan ee ka socda Switzerland halkaas oo labada dhinac ay gaareen is-afgarad hor u dhac ah oo lagu doonayo in lagu yareeyo xiisadaha isla markaana loo gogol xaaro heshiis rasmi ah qodobka labaadna waxaan diiradda saaraynaa falcelinta adag ee ka timid Israa'iil gaar ahaan mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka Avigdor Lieberman oo heshiiska Washington iyo Tehran ku tilmaamay musiibadii siyaasadeed ee ugu weyneed ee Israa'iil soo wajahda tan iyo markii la aasaasay haddaba muxuu ka kooban yahay heshiiskan sidee ayuu saameyn karaa mustaqbalka gobolka bariga dhexe maxayse ka dhigan tahay qaylada iyo walaaca daawadayaal haddaba maxamed maxamuud cade oo soo akhriyay warbixinadan ayaa ila falanqeynaya barnaamijka maxamed waan u imaan doonaa qaylodaanta iyo walaaca ka soo yeeraya Israa'iil balse aan ku hormarno maxaa ka dhalan kara wadahadalada Switzerland ee Mareykanka iyo Iiraan ilaa hadda intii la ogsoon yahay wadahadalada Mareykanka iyo Iiraan ku dhex Switzerland waxaa la isku afgartay qodobo dhowr ah oo xagga farsamada ah wajiga koowaad waxaana lagu soo gabagabeeyay wadahadalkii wareegii koowaad oo ay dhexdhexaadiyeen wadamada Qatar iyo Pakistan waxaana arrimaha diblomaasiyadda ee socotay weheliyay xiisad ee ka socotay Mareykanka iyo Iiraan dhexdiisa oo ay ka mid tahay bayaano uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump warsidaha ama wakaaladda wararka ee ardayda Iiraan ayaa ku waramaysa in wadahadalada xagga farsamada ay bilaaban doonaan maalinta Isniinta lagana wada xaajooday farsamada lagu meel marinayo heshiiska is-afgaradka ah ay labada dhinac Mareykanka iyo Iiraan ay saxiixeen iyo sidii loo sameyn lahaa kooxo mutaqassisiin ah oo dabagal ku sameeya qodobada laga wada hadlay waa gartay marka maxay ka wada hadlayaan kooxaha farsamada labada dhinac wafdiga Iiraan wada hadalada farsamada u qaabilsan waxaa madax u ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Karim Garibabadi iyo dad khubaro ah oo isugu jira siyaasiyiin aqoon-yahano xagga dhaqaalaha dad qaanuunka yaqaana halka wakiilada Qatar iyo Pakistanna ay ahaan doonaan dalalka dhexdhexaadinaya wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan waxay xaqiijisay in wajiga labaad lagu abuuri doono guddi farsamo iyo guddi kormeer oo dabagal ku sameeya sidii lagu meel marin lahaa qodobadii isfahamka labada dhinac ay isla gaareen ee lagu saxiixay sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda waxay tilmaantay wada hadallada in lagu soo qaaday arrimo badan oo ay ka mid yihiin saliidda ay Iiraan dhoofinayso iyo waxyaabaha lagu fududeynayo shaqadaasi iyo in dhaqaalihii ka xanibnaa waddanka Iiraan ee Mareykanku uu ka xanibay sidii lagu soo deyn lahaa halka tallaabooyin wax ku oola loo qaadayo sidii lagu bilaabi lahaa meel marinta qaar ka mid ah qodobadii ku saxiixnaa heshiiska isfahamka Iiraan waxa ay ku nuuxnuuxsatay mabda ahaan inay ka go'an tahay ballanqaad in lagu bedelo ballanqaad si loo xaqiijiyo inay malmar u noqdaan qodobadii la ballanqaaday ee la wada saxiixay waxaana lagu nuuxnuuxsaday in guddi shaqo la abuuro oo howlahan wada xaajoodka inta hartay furdaamin doona iyo meelmarintooda qodobada muhiimka ah ee uu ka koobnaa heshiiskii isfahamka ee labada dhinac saxiixeen waa gartay dhinaca kale sidee ayuu heshiiskan u saameynayaa gobolka talaabadan lagu abuurayo guddiyadan farsamada ayaa soo baxaysa maalin kadib markii wada xaajood ay si buuxa ugu yeesheen labada dhinac ee waddanka Switzerland halkaasoo Qatar iyo Pakistan ay dhexdhexaadiye ka ahaayeen oo ay sheegeen in horumar la taaban karo la gaaray galalkii laga wada hadlayay ama qodobadii laga wada hadlayay dhinacyo badan la iska afgartay oo ay ka mid tahay sidii lagu abuuri lahaa qaab ciidanka Israa'iil iyo Xisbullah sidii loo kala qaadi lahaa iyo
in la abaabulo qorshayaal looga gol leeyahay in lagu xaqiiqsado amniga lagu marayo marinka Hormuz maraakiibtuna ay si habsami u maraan marka laga gudbo in jawi fiican wada hadallada qayb ahaan uu u dhacay haddana wada xaajoodka ayaa dib u dhac ku meel gaar uu ku yimid kadib markii madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu hadallo guracan oo ka dhana Iran jeediyay taasoo dhalisay wafdiga Iran in ay arrintaas ka caroodaan dhalisana arrin la xiriirta kulamada lagu jiro oo Mareykanka ku jiro iyo madaxweynahooda sida uu dhaqmayo in ay kala duwan yihiin mabaadi'da wada xaajoodkana ay khatar ku tahay ka hor inta aanan xiriir la samaynin labada dhinaca oo wadamada Qatar iyo Pakistan ayna suura gelin in la isku soo noqdo wada hadallada wafdiga ka socda wadanka Mareykanka waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka JD Vance ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff iyo wiilka uu sabab u yahay madaxweynaha Mareykanka Jared Kushner halka Iran dhinaceeda ay matalayaan afhayeenka baarlamaanka Maxamed Baqir Qalibaf iyo wasiirka arrimaha dibadda Abbas Aragji وهاجا marka ma jirtaa khariidad cad oo lagu gaarayo heshiis kama dambays ah sida laga soo xiganayo bayaan ay wadajir u soo saareen dhexdhexaadayaasha labada dhinac Mareykanka iyo Iran waxa isku afkarteen in la abuuro guddi heer sare oo siyaasadeed iyo kooxo ka shaqayn doona galka nuclearka cunaqabataynta iyo arrimaha farsamo ee lagu mudansan yahay labada dhinac ayaa sidoo kale isku afkartay 60 maalmood qariidad ah oo wada xaajoodka kama dambaysta lagu qaban doono ama heshiiska ugu dambaysta lagu gaari doono iyo sidoo kale in la abuuro khad toos ah oo Mareykanka iyo Iran ay ka wada hadli doonaan marka ay timaado arrimaha Hormuz si looga baaqsado in shil dhaco ama khalad kale oo farsamo u dhaco oo saameyn ku yeelan kara habsamo u socodka marinkaasi dhanka Lubnaan waxaa lagu dhawaaqay in la abuurayo unug labada ciidan kala guurkooda ka shaqeynaya oo lala xisaabtamayo sidii loo adkeyn lahaa xabad joojinta tallaabadaasna Iran iyo dowladda Mareykanka waxay u arkaan inay hordhac tijaabo u tahay awoodda guul uu ku gaari karo heshiiskan isfahamka ay gaareen oo keenaya natiijo la taaban karo oo dhulka laga arko وهاجا داوديال waxaan u gudbaynaa qaybta labaad ee barnaamijka oo aan ku eegayno hadal culus oo walaac xambaarsan oo ka soo yeeray mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka Israa'iil bal soo dhawaada mar kale daawadayaal haddaba aan u gudubna qaybta labaad ee barnaamijka maxamed inoo faahfaahay hadaladan ka soo yeeraya Avigdor Lieberman madaxa xisbiga ugu weyn ee mucaaradka Israa'iil Beitenu Party yiraahdo Avigdor Lieberman ayaa ku tilmaamay heshiiska dhexmaray Iran iyo Mareykanka in uu yahay masiibadii siyaasadeed ugu weyneyd ee Israa'iil u soo hoyata ilaa intii Israa'iil laga aasaasay 1948 Israa'iil ayaa markii hore koox burcada 1948 waxay xoog ku qabsadeen oo ay laayeen tuulooyin iyo deegaano ay Falastiiniyiintu deganaayeen waxayna barakiciyeen 750 qof wixii ka dambeeyay Israa'iil waa diiday in deegaanadii ay Falastiiniyiinta ka xoogeen markaasi qaramada midoobay qawaaniinteeda ku qoran iyo xeerarkii la soo saaray inay ka baxaan way diideen Lieberman ayaa waxa uu ku sheegay barta X in heshiisku dhexmaray Mareykanka iyo Iran uu yahay masiibadii ugu weyneed ee Iran Israa'iil soo hoyata ilaa intii dowladdaas la aasaasay waana arrin saameynteeda leh waa gartay marka sidee ayuu ku yimid heshiiskan maxayse ka walacsan tahay Israa'iil June 18keedii Mareykanka iyo Iran ayaa waxay saxiixdeen isfaham is-afgarad ah lagu soo afjarayo dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay wada jirka ugu bilaabeen Iran February 28keeda haddana waxaa socda wada xaajiyo lagu soo gabagabeynayo ama lagu gaarayo heshiiskii ugu dambeeyay waxa uu leeyahay Lieberman
waxaana lagu qasbayaa in aan ku camal falno sida ay tahay danaha Israa'iil. laakiin marka la fiiriyo ascaarta saliidda caalamka isbedelaya ayaa hadda waxaad moodaa in lagu salaynayo heshiiskan, isagoo ka hadlaya khabiirada oo u tixgelinaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuuna xiseenin wax kale oo aan ka ahayn inuu dagaal ku soo afjaro ascaarta saliidda oo qaaliyowda aawadeed oo saameyn ku yeelata dalka Mareykanka. waa gartay. marka sidee ayay Israa'iil uga falcelisay wadahadalada gaar ahaan xubnaha ka tirsan xukuumadda Netanyahu? wasiirada Israa'iil ayaa hadda weeraraya madaxweyne Trump oo ka saaray wadaxaajoodiyada Mareykanka uu la gelayay Iiraan in ay qayb ka noqdaan. xisbiga mucaaradka ayaa ku eedeynaya ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu guuldaraystay, wuxuuna sheegayaa in wajibgalahnimo iyo bahdilaad inuu ku sameeyey madaxweynaha Mareykanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil. inta aanan la soo saarin is-afgaradka labada dhinac Mareykanka iyo Iiraan ay ku heshiiyeen, Netanyahu ayaa sheegay inuuna waxba ka ogsooneyn faahfaahinta la xiriirta is-afgaradkaasi, waxaana hoosta laga xariiqay in faraq weyn iyo khilaaf uu u dhexeeyey Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka, iyadoo cambaarayn xoog leh loo jeediyey xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil. waa gartay. dhinaca kalena maxaa lagu eedeeyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu? raadiyaha Israa'iil ayaa laga soo xigtay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Liberman oo sheegaya in Netanyahu uu u noqday madaxweyne Trump cid uu wuxuu raba ka yeeli karo, oo uu khatar geliyey askartii, iyo waxaana gacmaha laga xiray askarteeni iyo ciidankii dagaalamayay iyo lugaha, oo amarka waxaa bixinaya madaxweynaha Mareykanka. Israa'iil ayaa ku adkaysanaysa inay sii wadayso weerarada ka dhanka Lubnaan. marka laga gudbo xaqiiqada ah is-afgaradka Mareykanka iyo Iiraan ay saxiixdeen, waxa uu qorayaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay in colaadda laga joojiyo dhinac walba oo ay ku jirto waddanka Lubnaan. وهجاج وانا اركي دونا arrimahan wixii ku soo kordha aad baa u mahadsantahay Maxamed. daawadayaal idinkana aad baa ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijka. waxa inaga xasuusinaa haddii aad ku cusub tahay HBN Online TV ama hore aadan ugu xirnayn ku soo biira baraheena kala duwan internetka aan ku leenahay. inta ku kulmi doono barnaamijka midka ku xigo insha Allah. nabadgelyo.